السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب عيال كسر بدا كلمية برايفت سكول أنا قلنا وحنا هاي ولكن عمر محمد علي كل سر بدا 10 كنا مانتا أو حساب بدن إن شاء الله 10 كمان وحنكو إيجي دونا إن معلومة سرقنا هاي وحكاس على الدجال إن دول كاس إسرائيل إيو فلسطين حتى با إن مركز الدجال كاس إن واحد إن مركز كإيجي دونا أنا مركز وجد كي وماهن إن السياسة إيو وحاس أنك هذلو لكن وحن دونا إن إري السياسة أنك فإذا سنة 10 كأو لغة إنجليش erey siyaasadeed inaan barano haddaba marka casharka maanta idin soo gudbinayo waxaa ku hadlay afhayeenka ciidamada difaaca ee Israa'iil Yahuuda afhayeenkoodii ayaa marka hadlay hadalkaasi ayaan marka rabaa inaan idin turjumo aan idin micneeyo haddii aad meel ku aragtaanna meelo fara badan waad arki doontaan marka dhinkaas hadalkiisa ayaan idin turjumi doonaa sad af Soomaali ahaan aad uga barataan hadalkiisa kuna soo dhawaada saaxiibayaal full statement marka full statement هذا البوحة full statement هذا البوحة from هذا الكاسو كلمة IDF spokesperson IDF spokesperson أفهيان كعيدا كدفاع مركا أي إسرائيل IDF أيها وحلقسو قاب شيء با IDF وحلقسو قاب شيء Israel Defense Forces وحويان عيدا كدفاع إسرائيل مركا spokesperson waa afhayeenkaas ayaa markaasi ka hadlay hadalkan in soo gudbinayo wuxuuna ku bilaabay hadalkiisa sida tan this weekend asbuucan Hamas waxay bilowday a war dagaal against dagaalkaasoo karan ah ay ku soo qaadeen Israel bay ku soo qaadeen with dagaalkaasoo lahaa the worst massacre حسوقي أو حما أو لغو حسوقه of innocent civilians شعب مساكينة أو وحبة قلبسن لغو حسوقي in Israel's history كدعضه تاريخ إسرائيل أبد Hamas was more barbaric Hamas وحي آتي وحي متكبها لما بدن and more brutal كان نحريس درن than ISIS قاعدة دفاع داعش ISIS وحي كسو قبشين Islamic States of Iraq and Syria كوحدة إسرائيل مركزي سوريا iyo Iraq إسلامية أو داعش أي أولوجيدن let me be crystal clear أن عدايو هذلك Israel will respond إسرائيل وحي أوجد جوابي دونتا with determination قوان and force iyo markaas waxay ugu jawaabi doontaa and force iyo awood ama xeelad to the unprovoked war crimes dambiyadooda dagaal aan loo meel dhigan ayay ka jawaabi doontaa Israa'iil oo loo jawaabi doono kooxda Hamas ee Falastiiniyiinta Hamas waxay dileen kooxdii Hamas waxay dileen hundreds of Israelis boqolaal Israa'iiliyiin ah oo Yahuud ah ayay dileen men oo ku wada jiraan rag women ku wada jiraan dumar and children ayna ku jiraan caruur and took dozens hostage waxayna qafaasheen tobanaan qof into Gaza ee markaasi Gaza dadka Gaza ayay markaasi qafaasheen oo ay wateen this horrific terror act falkan argagaxnimo ee markaasi falkan argagaxa leh demands wuxuu dalbanayaa a forceful determined jawaab adag and sustained response iyo go'aan joogto ah ayuu dalbanayaa which is exactly kaas oo si toos ah which is kaasoo ah exactly si toos what we are doing waxa anaga aan sameynayno kulug leh and continue to do oo aan wadi doono sameyntiisa our air force ciidankeena cirka buu yiri is attacking waxay weerar ku yihiin hundreds of Hamas boqolaal Hamas ayay weerar ku yihiin ciidankeena an Islamic Jihad targets iyo bartilmaameedyaal
kooxda islaamiga ee jihaadka ah in Gaza ee ku sugan Gaza kuwaas bay ciidankeenina weerar ku yihiin buu yiri. We follow waxaynu raacnaa international law sharciga caalamiga ah ayaan raacnaa while exercising anagoo ku gudi jirno while exercising anagoo ku gudi jirna our right xuquuqdeena and responsibility iyo mas'uuliyadda to protect ee markaas ilaalinta our civilians shacabkeena ilaalintiisa iyo aan ku gudi jirno. The days ahead maalmaha soo socda ee soo aadan will be long waxay noqon doonaan kuwa dheer and difficult iyo kuwa adag ayay noqon doonaan. We have paid waxaynu bixinay a heavy price qiimo culus ayaan bixinay buu yiri qiimo culus baan bixinay balse we will restore waxaynu soo celin doonaa security amnigaan ku soo celin doonaa to the people of Israel dadka Israel oo Yahuuda ayaan ku soo celin doonaa amnigooda. Let me repeat aan ku celiyo ayuu yiri hadana we will restore waxaynu soo celin doonaa security amnigaan ku soo celin doonaa to the people of Israel kooxda ama dadka Israel ayaan ku soo celin doonaa. Israel intelligence sirdoonka Israel indicates ayaa tilmaamaya that Hamas are hiding Hamas inay isku qarinayaan among Gazan civilians shacabka Gaza dhexdooda ayay isku qarinayaan inside Gazan homes guryaha Hamas bay isku qarinayaan and iskuulaadka ayayna isku qarinayaan hospitals isbitaaladana waa ay isku qarinayaan oo marka masaajidadana waa ay isku qarinayaan buu yiri. Hamas behaves Hamas waxay u dhaqmayaan kooxda Hamas waxay u dhaqmayaan like ISIS sida ciidamada Daesh oo kale ayay u dhaqmayaan. I repeat waxaan ku celinayaa buu yiri Hamas behaves Hamas inay u dhaqmayaan like ISIS sida ciidanka Daesh u dhaqmayaan inay sida oo kale u dhaqmayaan ayaa markaasi cadeynaya buu yiri. It is the same strategy waa xeeladii buu yiri waa isla xeeladii to maximize lagu kordhin lahaa civilian casualties khasaaraha shacabka ee markaasi lagu kordhin lahaa in Gaza and Israel iyo Israelba and make you all forget or add ilowsiisaan dhammaan the massacre xasuuqi of hundreds of Israelis and boqolaal Israel oo markaa loo geystay that started kaas oo biloway this war dagaalkan in first place markii horeba ay bilaabeen in la xasuusiyo weeyaan dadka. We will not forget marnaba ma ilaabi doono Hamas terrorists target argagixisada markaasi Hamas ma ilaabi doono target taasoo ay beegsato Israel civilians dadka rayidka ah ee Israel ay beegsato iyagu ma ilaabi doono. Israel will target Israel kooxda la yiraahdo will target waxay beegsan doontaa Hamas bay markaasi beegsan doontaa an Islamic Jihad terrorists iyo kooxda argagixisada ee jihadka Islaamigana waa ay beegsan doontaa wherever they will be in Gaza ma alaala meesha ka istaagi doonaan Gaza ma alaala meesha Gaza ka joogaan macnaha waan ku weerari doonaa. We will do waxaynu sameyn doonaa whatever wax waliba it takes ayna u qaadato waaynu sameyn doonaa to protect san ku ilaalin lahayn our people dadkeena and restore and ku soo celin lahayn security amni aan ku soo celin lahayn to Israel dadka Israailiyiinta aan ku soo celin lahayn. We are also looking to sidoo kale waxa aan fiirinaynaa oo eegaynaa the north and markaas dhinaca waqooyi as well si fiican ayaan dhinacaas waqooyina aan u eegi doonaaba meesha laga soo weerarayo macnaha with full readiness taasoo ay markaas ay la jirto diyaarsanaan buuxda aan u gali doono and we are fully coordinated waxaan si buuxda ula xiriirnay with Centicom ayaan la xiriirnay. Centicom waxa weeyaan waxa la soo gaabshay horta Central Command waxay markaasi saaran tahay waxay markaasi ka dhisan tahay
America US ay ka dhisan tahay marka waxa weeyaan adiga kooxda markaasi xoogaga difaaca ciidanka ay u xilsaaran tahay marka meesha looga armay weeyaan match General Halevi ninka la yiraahdo Master General Halevi has just finished hadda ayuu dhamay General Halevigan waa maxay waa ninka guud ee marka adiga waxa weeyaan galsoora ama ciidanka qofka ciidanka madaxa u ah afhayeenkoodii ayaa la yiraahdaa markaasi General Halevi has just finished hadda ayuu dhameeyayba a conversation wada hadal ayuu hadda ka markaas ay kala dhamaadeen with General Kurilla kaasoo ula galay wada hadal General Kurilla and will keep talking hadalkana wuu sii wadi doonaaba hadalkana wuu sii socon doonaaba macnaha hadalka in the next hours again and wuxuu yiri in the next hours again saacadaha soo aadan saacadaha xiga kadib buu yiri saacadaha mar kale saacadaha soo aadan whoever attacks us it allaala cidiina soo weerarta oo naga soo weerarta from all over the Middle East dhammaan bariga dhexe cidii naga soo weerarta will face wuxuu wajihi doonaa ama waxay wajihi doonaan a decisive attack back dagaal dhab ah oo markaasi la isku soo laabanayo ayay wajihi doonaan marka halkaasaan ku soo afmeeraya generalkan isagoo markaasi ka hadlay arinkan ayaa sidaa yiri marka anaguna waxaan filaynaa in markaas wax badan aan ka kororsanay hadalkan aan erayo English aan ka kororsanay waxaadna ka heli doontaan isagoo hadlayo generalkan halka Israel ay bogeeda Facebook ay ku leedahay Israel Defense Forces ay ka helisan bogeedii Facebook weeyaan halkaas aan idin kaga soo afmeeraya saaxiibayaal dhamaantiin waxaan rajaynayaa fahamteen kuna soo dhawaada kanalkeena kulmiye private school